runtii farxad iyo rayn aan la soo koobin karin ayay noo tahay maantay inaan goobjoog u noqono guul kale oo taariikhiya oo ka mid ah guulaha lagu dhammaystirayo dib u yegleelidda iyo dhismaha maamulka Galmudug. runtii aad iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa aniga oo ku hadlaya senatarada iyo xildhibaanada saaxiibada ee heer federaal. runtii waan ka mahad celinaynaa heerka wax soo gaareen iyo shaqada aad soo qabateen oo runtii u dhabar adeegteen maantay marxaladda ay joogto inay timaado aad iyo aad ugu mahadsantihiin. annagana insha Allah sidii loo sheegay horena waan uga soo shaqeynay haddana inta dhiman insha Allah waan la taabageli doonaa ka xildhibaan ahaan annaga diyaar ayaan u nahay doorka nooga aadan deegaankii aan matalaynay Galmudug ee golayaasha baarlamaanka aan ku matalaynay inaan ka qaadano haday tahay dib u heshiisiinta haday tahay dhismaha maamulka haday tahay qancinta beelaha Galmudug degan oo ayaga ruuxooda cidii tabasho qabta sidaad ugu tagayseen oo kale inaan annaguna inta ugu tagna idin kala shaqeyno la soo jiido la isku soo jiido dib u heshiisiinta gacmooda jira wax ku qabtaana la yiri cid waliba tarafka ay ka leedahay ay ka qabsato ka xildhibaan ahaan ama inta hadda joogto deegaanka ka shaqeynaysa ha noqoto ama inta kale oo naga maqan oo wali aan imaanin oo Muqdisho jirta ha noqoto iyo gobolada kale ee dalka deegaanada diyaar ayaan una waan idin kala shaqeynaynaa insha Allah goob kasto iyo goor kasto naloo baahdana insha Allah diyaar ayaan u nahay wixii nagula baahdo waana naloo sheegay kulliba si hoosana waan ugu sheegay si guudna hadda waa u ogseynayno annagaba ka nimid ba hadda deegaanadii iyo madaladii siyaasiyiintu ay ku kulmayeen diyaar aan u nahay insha Allah inaan qaybtanada ka qaadano saaxiibada naga maqan oo wali aan imaanin oo kulliba sugaya dhamaystirka gogashan inay si habsamila u dhacdo oo waxyaabaha ka dhiman la dhamaystiro maanta runtii farxad ay noo tahay goobjoog inaan u nahay inay dhamaatay ayagana sidoo kale baaqayaan u jeedinaynaa u diraynaa saaxiibadeen waanan iskugu imaan doonaa insha Allah hadii alla yiraahdo si gaara si guudna inuu deegaankii nabad yahay maamulkiisii amniga gacanta ku hayaan ciidamadii dawladda federaalka inaan u xaqiijino annaguna maanta goobjoog aan u nahay waan rajaynaynaa insha Allah si habsami leh oo kalsooni leh oo cid waliba ay kalsooni ku qabto inay arintaas u meel marto aad iyo aad u mahadsantihiin